wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha mudane Cabdirashiid Ismaaciil Kaahin ayaa maanta soo kormeeray goobaha ay ka socoto qaadashada kaadhka codbixinta doorashooyinka Somaliland ee deegaanka Bus oo ka tirsan gobolka Gabiley. wasiir ku-xigeenka ayaa kormeerkiisii ugu kurgalaya habsami socodka qaadashada kaadhka oo dadweynuhu safaf dhaadheer ugu jireen ayaa waxa ugu baaqay dadweynaha deegaankaas inay qaataan kaadhkooda si ay u helaan xaqooda muwaadinimo ay xaq u leeyihiin. wasiirka arrimahan ka hadlaya waxa uu yiri bismillahir rahmaanir rahiim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin. sidaad ogtihiin waxa ay kaadh qaadashadii ka socotaa gobolkan Gabiley ama gobolka Maroodijeex guud ahaan. hadda waxaanu joognaa goobta Bus ayaanu joognaa oo lagu qaadanayo kaadhkii diiwaangelinta ama kaadhkii doorashada lagu qaadanayo ayaan joognaa. dhammaan ummadda Soomaaliland gaar ahaan dhalinyarada waxaan leenahay kaadhka qaata dadaala kani waxa lagu dooranayaa madaxweynaha oo kaliya maaha. madaxweynaha ayaa lagu dooranayaa waxa lagu dooranayaa golaha deegaanka ayaa lagu dooranayaa waxa lagu dooranayaa golaha baarlamaanka ayaa lagu dooranayaa waxa lagu kala saarayaa meeliba meel shay sida ay horumarinta u istaahisho ayaa lagu kala saarayaa. hadda goobtan Bus baan joognaa. goobtan Bus iskuul baa ku yaala. bari waxa laga yaabaa haddii cod fara badan uu ka soo baxo in MCH-kii oo dhakhtarkii oo kale loo sameeyo ceelkii loo sameeyo saldhigii booliska loo sameeyo waxaas oo dhan goobtan Bus aan joogno waxa u soo jiidi kara codkaaga ayaa u soo jiidi kara iyo kolba sida aad kaadhka u qaadato ayaa u soo jiidi karaysa. sidaa daraadeed dhammaan ummadda Somaliland waxaanu leenahay kaadhkan jiritaankeenna iyo qarannimadeenna iyo xaqqa dastuuriga ee ruuxa muwaadinka uu leeyahay ayaa ku xidhan. sidaa daraadeed ku dadaala kaadhkan qaata meel walbood aad joogtaan gobolada uu ka socdo oo gobolkan Gabiley iyo tuuladan Bus aan joogno goobtan Bus aan joognaa ay ka mid tahay oo Maroodijeex oo dhan ay ka mid tahay oo ay ka mid tahay togdheer ay ka mid tahay meelaha ay ka socoto oo dhan iyo meelaha ka dambeyn doona oo dhan hadii Ilaahay yiraahdo kaadhkaasi waa in la qaataa. aad iyo aad baad u mahadsantiin. aad iyo aad baan idinku salaamayaa sida aad ugu foojigantiin goobtan waad arkaysiin oo population fara badan ayaa maanta iska diiwaan gelinaya dhalinyaro leh odayaal leh inta gawaariye taagan waa idinka arkaya. dhalin waxa weeye Hargeysa oo kale dadkii tuuladan Bus u dhashay ee Hargeysa ku noolaa oo kale ayaa waxay halkan ayaa ka qaatay maalintii la isdiiwaan gelinayay. maantana waa kuwan kaadhkii ka qaadanaya. anigoo wasiir ayaa halkan iska diiwaan geliyay goobtii aan ku dhashay ay tahay oo iska diiwaan geliyay. marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in dhammaan kaadhka goobtan yaala gaar ahaan goobtan Bus in qof walba oo goobtan ka qaatay inuu kaadhka uu ka qaato oo uu u daymo la'aanin ummadda Somaliland taa ayaanu ku wacyi gelinaynaa. waa wax dan gaar ah maahina waa dan guud. intii uu ku jiray kormeerkan ayaa waxa wasiirku warbixin ka dhageystay shaqaalaha iyo maamulka ku sugan goobta ay ka socoto qaadashada kaadhka codbixinta doorashooyinku. ugu dambeyntii markii wasiirku soo gabagabeeyay kormeerkiisii ugu kurgalayay habsami socodka qaadashada kaadhka codbixinta doorashooyinka Somaliland ayaa waxa uu goobta deegaanka Bus ka qaatay kaadhkiisa codbixinta. Cabdirashiid Asad Muuse, Cabdirashiid Fantastic, shabakada caalamiga ee Suxufi Times, magaalada Boorama.